بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidii aan horey u ballan qaadnay kelimaadka kooban oo wacyigelin ah oo ku saabsan xaaladan uu abuuray xanuunkan corona viruska oo bulshada iyo mujtamaca aan ugu talagalay baan insha allahu tacaala soo jeedin doonaa haddii alla idmo kelimadani waxay ku saabsan tahay cudurkan caalamka aafeeyey dhibaatooyinka uu geystay waxaa ka mid a inuu dadka u dhimanayo marka laga tago iyo inta isbitaalada jiifta dhaqaalihii adduunka ayuu dhaawac weyn u geystay oo runtii dadku kuwii sii tabar yaraa oo iyagu markii horeba duruuftoodii iska adkayd haba u sii daraadeen arrintaasi marka waxay u baahan tahay in runtii la baraarujiyo khaasatan mujtamaca iyo bulshada Soomaaliyeed oo dadka aadka u tabar yar ka mid ah marka laga reebo dadka qurbaha jira oo dowladahaas ku hoos nool mujtamaca intiisa kale waxay u badan yihiin dad iska aad u danyar oo iska xamaalata ah oo maalinkii wixii ay soo xamaashaan habeenkii ku nool oo quudkooda halkaa ka raadsada waxba ayna u oolin aan waxba dhiganin raasamaal aan lahayn dadkaasay Soomaali u badan tahay maanta iyadoo markii horeba sidaa ay ahayd yaa haddana xaaladan uu cudurkani keenay iyo in la kala xirxiray shaqooyinkii shirkado badan shaqaalihii ay fasaxeen isu socodkii la ciriiriyey meeshii ruuxu uu ka xamaalan lahaa runtii wax weeye yani caqabaad badan la hordhigay ama gurigaba lagu xanibay arrintaasi runtii waxay abuurtay xaalad mudan in laysku baraarujiyo waxaan dhihi lahaa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala muddadii dheerayd ee ummadda Soomaaliyeed ay burbursanayd dhibaatadu soo gaadhay waxyaalaha ilaahay inagu badbaadiyey ee inoogu naxariistay waxaa ka mid ah isgarab qabashada iyo wax istarka iyo isqaadashada iyo midkeenna aadka u liita in runtii wax weeye aan laga tegin ama qaab saaxiibnimo ah laysu xiriiriyo ama qaab qaraabanimo ah laysu xiriiriyo ama qaab walaalnimo iyo islaamnimo ah laysu xiriiriyo runtii arrinta iyada ah waxa weeye waa wax ilaahay tabaaraka wa tacaala ina siiyey maadaama marka arrintaas aan soo wadnay maantana ay runtii aad uga sii daran tahay duruuftu ay ka sii adag tahay waxaan idinku baraarujin lahaa in laysu naxariisto oo ixsaan laysu sameeyo oo dadka tabarta yar ee xamaalatada runtii waxa duruuftoodu sii adkaatay in laga warhayo oo Soomaaliyay runtii laysu danqado ilaahay inta naxariisata ayuu u naxariistaa sida nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam intaan danqanin oo naxariisanin oo aan inta tabarta yar u nuglaaninna ilaahay uma naxariisto tabaaraka wa tacaala marka duruuftu way adag tahay runtii dowladihii iska tabar yaraa oo ay ka mid tahay deegaamadan Soomaalidu u badan tahay ama dowladahan ay ku hoos nooshahay waxa weeye dowlado faqiira weeye xataa dadkii hadday kala xidhaan oo ay guryaha ku xanibaan oo shaqooyinkii joojiyaan inay guryahooda ama dadkii xataa kabma u sameeyaan ma awoodi karaan ama ma u samaynayaan arrintaasi marka culays weyn baa runtii ka soo kordhay oo ka soo yani fool leh waxaan isleedahay dowladahan qaniga ama dowladaha wax haysta qaabkay u dhaqmeen cudurkan ay ula tacaalayaan malaha dowladaha faqiirkii si ka duwan bay ula tacaali lahaayeen waxaan aad iyo aad uga baqayaa xanuunkani hadduu sii yara daba dheeraado muxuu ahay coronavirus baa hadda laga cabanayaa laakiin dadka duruufta haysata iyo noloshii oo la xirxiray iyo gaajada haysata iyo yani nolol la'aanta noloshan ciriiriga gashay waxaan aad uga baqayaa inay runtii abuurto xaalad nafaqo xumo iyo macaluul kadibna hal cudur baa muxuu ahay laga hadlay inay cudurro kale ka dhashaan asagiina loo nuglaado loo jilco arrintaasi waxaad moodaa yani maamulada wadamadan ka taliyay inaan aad loo fiirinin
dowladihii taajirka ah un qaabkii ay muxuu ahay mareen un in la iska daba maray almuhim diinteennu waxayna leedahay ina faraysaa markay duruufaha noocan oo kale soo kordhaan in dadku ay isu naxariistaan oo la isu nuglaado oo xataa wax kale iska dhaafe wax siintii iyo waxtarkii iyo sadaqadii iyo qaraabo xidhiidhintii iyo ummaddii oo keedii tabarta yareyd loo naxariisto marka laga tago xataa in muxuu ahay ganacsigii iyo mucaamalaadkii iyo tijaaraadkii lafteedii in naxariis la geliyo bay u baahan tahay maanta guryihii kiradoodiiba meelo badan la iska bixin la'yahay dukaamadii shaqadii iyo muxuu ahay ganacsigii baa kala socon la oo istaagay oo kiradii baa la bixin la'yahay daymihii dadkii deymaha lagu lahaabaa daymihii gudila yani duruuf adag baa soo korodhay markaasoo kale waxay u baahan tahay inaynu shareecadeennu sidayna farayso inaynu wax badan aan dib u fiirino il naxariiseedna aynu ku dayno arrimaha inaynu ku dayno nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay kama fi saxiix albukhaari wagayrihi min xadiidi jaabir bni cabdillah wuxuu nabigu yuri sal lla alay wasalam raxima allahu imra'an samxan ida baaca waida ishtaraa waida iqtadaa buu nabigu yuri sal lla alay wasalam allah u naxariisto addoon muxuu ahay samxi ah addoon dabacsan oo dabeecad macaan oo muxuu ahay saamaxa marka uu wax iibinayo iyo markuu isagu soo iibsanayo iyo markuu xaq uu leeyahay gudanayo intaba addoon nugul oo naxariis badan oo dabacsan allah u naxariista buu nabigu yiri sal lla alay wasalam kadalika waxaa sugan xadiidu xudayfa nabigu sal lla alay wasalam bukhaari muslim baa soo saaray wuxuu nabigu sheegay sal lla alay wasalam nin ka mida ummadihii inaga horreeyey ayay malaa'igtu naftiisii qaaday markaasaa markii uu ilaahay u tegey tabaaraka wa tacaala ayaa waxaa lagu yidhi acamilta min alkhayri shay-an weligaa wax khayra ma samaysay baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi keliya waxaan garanayaa oon xusuustaa nin waxaan ahaa ganacsado ah dhallinyaraa ii shaqayn jirtay waxaan ku dhihi jiray war midka daynta aad ku leedihiina caydha ah ruuxii dayn aan ku yeelanay aan waxba haysanin iska saamaxa midkii wax haysta laftiisana ka suga oo muxuu ahaayey wakhtiga uu yara kordhiya ayaan dhihi jiray intaasaan garanayaa buu yidhi markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala naxnu axaqu bidaalika minhu tajaawazu canhu annaga arrintaa ka mudan buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala in addoommada loo naxariisto oo addoommada muxuu ahaayey loo dhaafo annagaa ka mudan addoonka isaga ah saas daraaddeed buu ilaahay malaa'igtiisa wuxuu ku yidhi u dhaafa dembigiisa sidaasaa lagu saamaxay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu naxariistiisii jannadiisa ku mutay marka yani waxay tilmaamaysaa oo xadiiska nebigu tilmaamayaa mucaamalaadku markay adkaadaan naxariis baa la geliyaa ganacsigii naxariis baa la geliyaa dadkii deymaha aad ku lahayd naxariis baa la geliyaa duruuf baa soo korodhay duruufta soo korodhay marka qiimayn bay u baahan tahay dadkii ayagu yani sii adkaayo iyagu noloshooda adkaydoo bulshada qaybteedii hoosahaydiga iska badaa iyagu kuma sii jiraan muxuu ahaay waa iyagu dabaylahan dadka ku dhacaya u faruuran yihiin wixii dabayl maanta dhacaysay hebelo yani wax weye ma joogtay buu yidhi adugu ma u faruurayd buu yidhi soomaali marka waxa weeye masaa'ibta caalamka ku dhacaysay waxay iyadu sii sidataa inay u faruuran tahay oo u jilicsantahay oo u dabacsan tahay waxaan marka doonayaa inaan idin gaadhsiiyo fariin ah intii wax haysatay maanta waa imtixaanan tahay sharikadihii waaweynaa raggii xoolaha haystay dadkii wax haystay imtixaan baa yaan runtii wax weye intii hore ka adag baa soo waajahay kuwaa tabarta yare intii yarada xamaalayayna maanta ka xidhxidhantay idinkaasaa laydinku fiirsanayaa soomaaliya markaa laysu naxariisto ruux walba ruuxii uu gaari karo wixii gacantiisu gaari karto dadkaa tabarta yar ee shaqooyinku ka xidhmeen khaasatan ha loo naxariisto oo halayska warhayo insha allahu tacaala nebigeennuna sal alla alay wasalam markii aayaadka ilaahay ee kowniga ah addoommadiisa uu ku cabsiinahayo ku cabsi gelinayo markay dhacaan nebigu wuxuu dhihi jiray sal alla alay wasalam sadaqada u degdega leanna sadaqada iyo ixsaanka iyo waxtarku waa wax weeyaan waa xirsixidh yani masaa'ib soo socotana waa lagaga hortagaa tu dhacday oo ku haysatana waa lagu qaadaayo sabab ay u noqotaa ilahay inuu kaa qaado tabaaraka wa tacaala wahal jazaau lixsaani ila alixsaan markaad ixsaan samayso abaalkaagu waa in ixsaan adigana laguu sameeyo wa axsin kama axsana allahu ilayka sida markii ilahay ixsaan kuu sameeyaba adiguna khalqiganaad ixsaan u samayso loo doonayo ayaa markaad ixsaan samayso haddana abaalkaagu waa in ixsaan laguu sameeyo aafaadkan marka ilaahayna garamariyo oo cudurradan ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadda ha garamariyo
وإنت وكل إلهي كعافية تبارك وتعالى إنت أوصن كل عنا إلهي تبارك وتعالى هكسمة بحيو وهكا إلاليو صوماليا هليس أوغادو هليسو نحريستو هليسو دنقضو هليسترو كتبرت درن هلو أوغادو qoysaska duruufahoodu aad u adag yihiin oo noloshii ay ka soo xidhantay si gooni ah looga warhayo derisku deriskiisa ha ka warhayo ehelkii qaraabadii iyo xigtadii hala xidhiidhiyo maanta duruuf adag baan maraynaa allah inaga samata bixiyo waxaynu kaga samata bixi karnaa waxaa ka mid ah marka sidaa isugu naxariisano wax istarno innagana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo naxariisanaya aafaadkana ilaahay inaga sarfinaya ina garab marinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala ajir aakhiriya jannadiisa iyo ridihiisu ina siinaya الله تبارك وتعالى محو هاي توكو هايستي دباتو كو هايستو إلهي كاغا قادايا أما حنون هالنقضو أما عليس كلا هالنقضو أما دباتوين كلا هالنقضين مركا الله يدين بركيو هل يسكور هايو أنا اللي سونا حريستو هل يسود مع السنادو ظروفتنا إنا هايستنا إن شاء الله تعالى يعني وحوي معاملات كيني يوحي ندح مريوردن يوحي ندح يالوردن إن شاء الله تعالى إلقونيا إيه العصبة هاللغو فيريو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.